Ruushka oo liiska argagixisada ku daray aaladaha Facebook iyo Instagram ee ay leedahay shirkadda Meta. Dhageystayaasheena iyo daawadayaasheena sharafta mudan, halkani waa Gaacir Media Tube. Barnaamijka wixii cusub ee wararka ee falanqaynta wararka ee aad kala socotaan Gaacir Media Tube. Waxaan idinkugu soo gudbinaa arrimaha siyaasadda, dhaqaalaha, arrimaha bulshada, difaaca, teknoolojiyadda, sayniska iyo wixii la midka ah. Haddaba intaanan u gudagelin faahfaahinta warbixintaas, dhageystayaasheena iyo daawadayaasheena sharafta mudan, waxaan idinka codsaynaa share, subscribe, like iyo follow inaad daataan page-ka iyo channel-ka Gaacir Media Tube ee aan ku kala leenahay Facebook iyo YouTube-ka. Waa mahadsantihiin. Aan ku bilowno. Labada aaladood ee ay leedahay shirkadda Meta ee Mareykanka laga leeyahay ayuu Ruushka ku sheegay in ay yihiin argagixiso kadib markii aaladahani lagu baahiyay ama lagu soo bandhigay waxyaabo lid ku ah jiritaanka dowladda Ruushka. Dhinaca kale, shirkadda Meta ayaa sheegtay in ay dhiirigelinayso waxyaalaha xambaarsan ee lidka ku ah Ruushka ee muujinaya ama ay ka mid yihiin fariimahaasi "Ruushka ha dhinto" iyo wixii la midka ah. Haddaba, Ruushka ayaa liiska argagixisada ku daray aaladaha Facebook iyo Instagram-ka. Aaladahan oo ay leedahay shirkadda weyn ee teknoolojiyadda Mareykanka waa Meta ayuu Ruushku u aqoonsaday in ay yihiin argagixiso iyo xagjirin. Dowladda Ruushka ayaa sababta ay Facebook iyo Instagram-ka ugu dartay liiska argagixisada ku sheegtay in ay tahay in aaladahani lagu baahiyo waxyaabo kala duwan oo xambaarsan fikirro xagjirnimo, kuwaas oo lid ku ah jiritaanka Ruushka. Waxaa xusid mudan in dowladda Ruushka bishii Abriil ee sanadkan 2022 ay dalkeeda ka mamnuucday in lagu baahiyo ama lagu isticmaalo aaladahani Facebook iyo Instagram-ka. Haddana waxaa lasoo sheegayaa in muwaadiniinta Ruushka ay isticmaalaan labadan aaladood iyagoo kula isticmaalaya aaladda ama application-ka xoojinaya internet network-ga ee loo yaqaan Virtual Private Network (VPN). Shirkadda Meta dhinaceeda ma inkirin dacwadda kaga timid Ruushka, oo ay shirkadda Meta way qiratay in ay iyadu fasaxday waxyaabaha ama fariimaha xambaarsan ee lidka ku ah Ruushka, sida "Ruushka ha dhinto" iyo wixii la mid ah, in lagu baahiyo aaladaha Facebook iyo Instagram-ka. Waxyaabaha xambaarsan Ruushka ama waxyaalaha lidka ku ah Ruushka ee ay ka mid yihiin "Ruushka ha dhinto" ayay shirkaddu Meta ku sheegtay in aysan ula jeedin dadka rayidka ah, balse ayay tiri shirkaddu Meta in waxyaabahani xambaarsan oo ay ka mid tahay weedha ah "Ruushka ha dhinto" ay ula jeedo oo keliya ciidamada Ruushka ee jooga gudaha carrada dalka Ukraine. Warbaahinta Ruushka laga leeyahay ee RT ayaa sheegtay in aaladda WhatsApp-ka oo ka mid ah bahda shirkadda Meta uusan khusaynin ama aysan qayb ka ahayn go'aanka cusub ee dowladda Ruushka ugu aqoonsatay aaladaha Facebook iyo Instagram ee shirkadda Meta ay leedahay in ay yihiin argagixiso iyo xagjirin. Falanqeeyaasha arrimaha teknoolojiyadda ayaa sheegay in go'aanka dowladda Ruushka ugu aqoonsatay aaladaha Facebook iyo argagixisada uu dhaawacayo wadaagista aqoonta iyo xogta la xiriirta teknoolojiyadda, iyadoo la wada ogyahay wadaagista aaladaha teknoolojiyadda ee kala duwan in adduunku ay ka dhigtay ama ka dhigeen hal tuulo. Adduunku inuu noqday hal tuulo oo camal, iyo sidoo kale in uu sii dhaawacayo xiriirka ka dhexeeya labada waddan waa Mareykanka iyo Ruushka, kaasoo markii horeba liidanaa. Waxaa la sheegayaa in shirkadda Meta ay racfaan ku xareysay maxkamad ku taalla magaalada Moscow ee Ruushka, taasoo shirkadda Meta ay racfaankan kaga soo horjeedo ama kaga shtakoonayso go'aanka dowladda Ruushka ay ugu aqoonsatay aaladaheeda Facebook iyo Instagram. Haddaba, warbixinta ayaa intaa ku daraysa in muwaadiniinta Ruushka ay zaid u isticmaalaan aaladda Instagram-ka markii loo barbardhigo isticmaalka aaladaha Facebook ee gudaha dalka Ruushka. Dhageystayaasheena iyo daawadayaasheena sharafta mudan, intaa waxaa inaga barnaamijka wixii cusub ee Gaacir Media Tube. Barnaamijka wixii cusub ee falanqaynta wararka ee kan xiga intaan ku kulmi doono. Nabadiina.